Assalaamu calaykum. Kevin Carter wuxuu ahaa sawir qaade u dhashay dalka Koonfur Afrika. Wuxuu sawirada u qaaday u diri jiray wakaaladaha wararka faafiya adduunka. Sanadkii 1993 ayuu shaqo u tegay dalka Suudaan oo ay xilligaas macluul aad u daran ay ka jirtay. Dabadeedna waxa uu la kulmay inan ama gabar yar oo markii ay socon kari weyday jidka lagaga tegay. Waxa uu isla goobtaasi ku sugnaa gorgor sugayay intay naftu si fiican uga baxayso. Kevin dabadeedna waxa uu qaaday sawirkan kor kaga muuqda ee ku lamaan oo ka mid noqday sawiradii ugu saameynta badnaa adduunka. Waxa uu sanadkii 1994 u helay abaalmarinta Pulitzer Prize ee sawir qaadista lagu bixiyo. Markii uu sawirkii gabadha yar adduunka ku faafay ayaa dad badan ay la soo hadlay warbaahintii kala duwanaa ee sawirka gabadha yar daabacay, iyagoo weydiinaya inay gabadhii yareed badbaaday iyo halkii ay ku dambeysay. Kadib markii sawir qaade Kevin la weydiiyey, wuxuu sheegay inuu halkii kaga tegay. Waxaa haddaba dhacday in bishii Luulyo ee isla sanadkii 1994 uu Kevin Carter nafta iska qaaday oo isagu isdilay kadib markii uu ka seexan waayay dareen ah inuu gaf ka galay bani'aadamka.